Assalaamu calaykum. Kalidu waa mid ka mid ah xubnaha ugu shaqada badan ee ku jira jidhka bini'aadamka. Kalidu waxay qabataa shaqooyin badan oo aan laga maarmi karin. Labada kaliyood ee nagu dhex jira waxay awood u leeyihiin nadiifinta dhiigga 10 jeer oo kale oo la mid ah inta uu hal qof u baahan yahay in laga nadiifiyo. Waana sababta keenaysa in haddii ay mid xumaato uu qofku sii noolaan karo. Maxaa yeelay kalidu waa xubin xasaasi ah, taasina waa naxariista Allaha wanaajiya wax kasta oo uu abuuray. Haddaba kalidu shaqooyin caynkee ah bay qabataa. haddii ay qofka ka xumaadaan kaliyiisu dhib caynkee ah baa soo gaari kara. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xaajiisa kuto muxuu ku ducaysan jiray? Nidaam caynkee ah bay kalidu ku shaqaysaa? Su'aalahan si aad u ogaatid muuqaalkan dhammayso. Haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir, muuqaalkana like saar. Mahadsani. Aynu bilowno. Wadnuhu maalintii wuxuu jidhka ku soo daayay dhiig gaadhay 7,000 litir. Haddaba 7,000 maalintii ruuc ka mid ah oo ay biyuhuna ku dhex jiraan waxay dhex maraan kaliyaha si loogu soo sifeeyo. rubacaasina wuxuu u dhigmaa 1,800 litir. Rubaca la sifeeyayna 1 litir baa kaadi noqota. Dhiigga jidhkeena dhex qulqula maalintii in 20 ilaa 25 jeer u dhaxaysa. Wax dhex mara kaliyaha si loo sifeeyo. Dhiigga kaliyaha gala waxa la socda hadhaagyadii borotiinka, uskagii unugyada iyo waxyaabo kale oo sun ah. Dhiiggan waxa soo qaada arteriska, kuwaasoo marka ay kaliyaha galaan fida oo sii fida ilaa iyo inta ay isku ururaan, iskuna duumaan kadibna isugu yimaadaan nephronska. Halkii kaliba waxay ka kooban tahay 1 milyan oo nephron. Halkii nephron wuxuu ka kooban yahay glomerulus iyo tuumbo dheer oo loo yaqaano tubule. Glomerulus waa meesha ay isugu yimaadaan arteriskii dhiigga soo qaaday. Wuxuu qaabilsan yahay kala shaandhaynta dhiigga, isagoo markaasina u gudbinaya tuumbada, taasi oo iyaduna dhiigga ka nugta wixii faa'iido leh ee biyo, sodium, calcium iyo nafaqo ah. Wixii qashin ahna tuumbadan waxay ka qayb qaadataa u beddelidda kaadida. Kalidu qaab xisaabeed aad u nidaamsan bay ku shaqaysaa, oo wixii dhiigga ku dheeraad ah misna aan u baahnayn jidhku ee ka mid ah sonkorta, milixda iyo hadhaagyada daawooyinka waxay raacsaa kaadida. Tusaale ahaan qofku haddii uu biyo intii ku filnayd in ka badan uu cabo, kaliyuhu markiiba way dareemaan oo intaa dheeraadka ah kaadida ayay raaciyaan. Halka marka uu qofku jimicsado ama si aad u haraado ay kaliyuhu dhiigga dib ugu celiyaan biyihii ay ka nugeen, oo in kooban baa markaasina raacda kaadida. Waana sababta qofka ay jidhkiisa biyuhu ku yar yihiin ay kaadidiisa huruud u noqoto. Haddaba talo qofka kaliyuhu ka xumaadaan maxaa ku dhaca? Qofku haddii uu bilaa kaliya noqdo ama ay ka xumaadaan, jidhkiisu wuu xumaanayaa oo shaqooyinkii ka socday oo dhammina way istaagayaan. Maxaa yeelay qofku maalintii wuxuu cunayaa ama cabayaa cunnooyin iyo cabitaanno kala gedisan, kuwaasoo haddii ay waayaan kaliyihii sifeyn lahaa dhiigga misna kala shaandhayn lahaa ay khatar aad u weyn ka dhalanayso. Jidhka waxaa ka buuxsamaya sun, qashin iyo hadhaagyo aan loo baahnayn. Kadib qashinkan faraha badani waxay carqalad ku noqonayaan sisteemadii kale ee jidhka ka socday. Ugu dambeyntii haddii uu qofku heli waayo kalida gacan ku samayska, taasoo aan iyaduna marnaba u dhigmin kalidii caadiga ahayd, ay sabab u noqonayso dhimashadiisa. Nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu xaajidiisa guto wuxuu ku ducaysan jiray: alxamdulillahi alladii adhaba cannii maa yu'diinii wa abqaa lii maa yanfacunii. Waxa mahad iska leh Allaha iga saaray wixii i dhibayay, iina reebay wixii i anfacayay. Sidoo kale nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee marka uu cuntada cuno kadib wuxuu odhan jiray: alxamdulillahi alladii adaaqanii ladatahu wa abqaa fiya quwwatahu wa adhaba cannii adaah. waxa mahad iska leh Allaha i dhadhansiiyey macaankeeda, wixii tamar iyo awood ah ee ay wadatayna jidhkayga ku reebay, wixii dhib ah ee ay wadatayna iga saaray. kalida shaqooyinka badan iyo kuwa kaleba qabataa waxay leegtahay 10 ilaa 13 sentimitir, waana wax gacanta lagu soo qabsan karo. kalida iyo xubnaha kale ee jidhka bini'aadamku waxay calaamado u yihiin weynida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, kaasoo wax kasta uu abuuray wanaajiyey, xikmadina ay ka dambayso. sidaa daraaddeed waxaa laynooga baahan yahay inaynu Alle subxaanahu wa ta'aala markasta ugu mahadnaqno oo aynaan noqon sida kuwa Ilaahay ka yidhi: yatamattacuuna wa ya'kuluuna kamaa ta'kulu al-ancaamu wan-naaru mathwan lahum. way raaxaysanayaan waxayna wax u cunayaan si ay xooluhu wax u cunaan, naartuna waa hoygooda. kalidu waxyaabo aad u badan ayay qabataa oo aan hal muuqaal lagu soo koobi karin. muuqaalkan intaas noogu eegyahay. haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan asxaabtada la sii wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.